waxaan 10 daqiiqo aan gaarin baa waxaa ku baran doontaa how to buy your first rental property for little to nothing. So this is what crash course waaye dadka qaar waxay ku bixiyaan up to $10,000 ay ku bixiyaan laakiin maanta wax ku baranaysa totally free. So waan ku bilaabaya si waqti badan aan kaaga lumin. Haddaad rabto inaad iibsato your rental property first waa inaad ogaataa locationka muhiim waaye. The first one location markaa fiirinayso website la aadaa jirtaa oo loo yaqaano crimegrade.org. The second thing inaad fiirinayso locationka waxay noqonaysaa inaad fiiriso population meesha inay ka badan yihiin at least 50,000 inay dad ka badan yihiin. waxaa aadi kartaa websiteka loo yaqaano census.gov. waxaad other thing inaad ogaato muhiim ay tahay waxay noqonaysaa rent price inaad ogaato. Zillow waa aadi kartaa just locationka meesha inaad ka iibsataa rabto ayaa ku qoraysa wuxuu ku tusayaa guryaha noocaas inta lagu kareysanayo an average let's say 1200 1600 whatever waxay noqoto. So once aad soo ogaato the first step waa inaad locationka soo ogaataa. Okay, your first step is done. The second step waxaa loo yaqaana property search baan sameynayna hadda. waxaan raadinaynaa guryaha aniga badan markaan guri raadinayo you have to have some sort of requirement inaad leedahay adiga guriga raadinayso. For example aniga gurigan raadinayo kale markaan raadinayo kale waxaan raadiyaa guri inuu yahay single family 3 bedroom 2 bathroom inuu yahay u dhaxeeyo square feetkiisa inuu yahay 1200 to 1500 inuu yahay pricekiisana inuu ka yaraado 250 wax ka hooseeyo baan jeclahay aniga saan jeclahay. So waxaa ka dhigi kartaa two level inuu noqdo haddaa rabto kale basement ku lahaado uu guriga u ka weynaanin 1910. That's my requirement aniga markaan fiirinayo kale. laakiin property-dan haddaa rabto inaad soo aado there's a way aad ku raadin karto. haddaa rabto free na aado waxaa aadi kartaa Zillow, Realtor, Redfin. waa filtergaraynaysaa waxaa aadaysaa qaybta the creative financing baa raadinaysaa. So taasoo ninka sellerka si toos oo deal garayso si real estate agent oo deal garay waan samayn kartaa. oo wax loo yaqaan Facebook jira for sale by owner. That's the other option. haddii aad rabto inaad lacag bixiso waxaa aadi kartaa website-ada leadskan uu ka fiican yahay kuwa kale. kuwa loo yaqaana jira PropStream oo aad lacag ku bixin karta $100, Bachelor, Flipster. haddii kuwani $100 laakiin kuwana ugu fiican lacag $100 ka bixis laakiin waxay leeyihiin free trial for 7 days leeyihiin. That 7 days haddaa aad PropStream wuu ku siinayaa all the information ka soo helaysaa. Then there's a loophole dadka sameeyaan email cusub kala samaysanaysaa every time haddana you have another 7 days. Okay, that's the trick. waa samayn kartaa that one laakiin aniga waan bixiyaa regular money aan bixiyaa so like this part of my business why. So the other option waxaa samayn kartaa waxaa hadi kartaa qof real estate agent la hadli kartaa oo MLS. Or this one's like you have to be a real estate agent in la shaqeysay noqonaysaa uu property ku soo diro. So now the step 2 is done. Step 3 waxaan ku sameynaynaa guryaha markaa soo hesho wax loo yaqaan skip tracing ku samaysa waay. ninka sellerka numberkooda inaad soo hesho waay. haddii aad PropStream isticmaalayso kale waxay leeyihiin skip tracing 24 cent kugu charge garanayo. So that one aad samayn kartaa. laakiin haddii aad haysanin arabin lacag inaad bixiso Soomaalian ahay way sugnahay waxaa aadi kartaa website loo yaqaano True People Search. waxaana shaashada ka wada arki doontaa. Step 4. This is where hadda loo baahan numberada inaad rangarayso. You have to run the numbers. You have to know property-gan inuu lacag fiican ka samayn karto in kale. So waxaa samaynaysaa aniga investment house tool isticmaala. You just put all the information ka gelinaysaa basically uu ku analyze garanayaa. The other thing inaad samaysaa loo baahan yahay markaad joogto halkani waxaad samaynaysaa wax loo yaqaano CMA oo comparative market analysis. guryahana isbarbardhigaysaa mustaqbalka in case this property haddii uu ku fiicnaan rental property you can do fixed and flip ku samayn kartaa waa si flip garanaysaa. So you have to know what is it called ARV after repair value inaad soo ogaato waay. So that one the only way ku soo ogaan karta waa inaad CMA samaysaa. So then number 5 waxaa noqon kartaa haddaa garanay waxaasi you have to work with real estate agent. CMA-gaas ku soo siinaya asaga that real estate agent it has to be an investor friendly qof oo real estate anoo kale like real estate agent or also real estate investor labadaba isla inaad soo raadisay noqonaysa ama qof kale inaad raadisay noqonaysa like I don't meesha ku nooshahay exactly waday ku xiran tahay. Step 6 this is the game. This is measure process ka bilaabanaya. Now you have to reach out to the seller in adda you have to draft your contract in draft garaysto and you have to send an offer. Lakin when you do your research marka soo sameynaysa you have to filter waxaad raadin kartaa guryaha oo creative financing only accept garanayo kale. Ku hadda aad ku samayso then basically waa lakin haddaad garanaynin sida loo contract loo sameeyo I will make another video on soo sameyn doona insha Allah mustaqbalka waa ka soconaya. Lakin hadday taa dhacdo waxaa dhici doonta there's only 3 options oo dhici karto. way accept gareyn doonaan way reject gareyn doonaan ama wax loo yaqaan counter offer bay sameynayaan lacagta noo soo dirtay ku diidayaan and then you will go from there and then waa ka soconaysaa. So then shirkadda creative finance hadday ku shaqeyn wayso waxay noqonaysaa lacag down payment inaad dhigto. haddaan ka soo qaado guriga iibsatiin waa let's say 200,000 wa 3% aad dhigto waa 6,000 closing cost roughly 2% waa so gurigaas waxaa ku iibsan kartaa $10,000 ku iibsan kartaa. 8 this is the part do not skip an inspection ka ha ka boodin dadka qaar way ka boodaan. Just literally meesha haddaa rabto property-gan inaad ka baxdo haddaa ciladiisa kugu bataan inaad ka baxdaa rabto waa sida kaga bixi karta waay.
Also, this will give you wax loo yaqaano negotiation power oo ah guriga hadduu ku iibsan rabto 250 oo kale ciladaha ku aragto ninka waxaa ku leedahay like lacagtan way badan tahay aniga waxaan rabaa let's say 250 ku waxaa leeyahay 200,000 kaaga iibsanaya ama 200,000 duu waxaa leedahay waxaan kaa siinay 140 oo kale usually badanaa way ka ogolanayaan. Step 9, now you have to find a title company na soo raadisay noqonaysaa. Title company gan oo ku kala gabagabayn doona everything. All you have to do is like go to Google waxaa gelisaa title company near me uu ku soo baxaya. And the last one, you have to find reliable tenant and vet them the whole process. Vet garaysa noqonaysaa. So the last step waxaa noqonaysaa waa inaad soo raadisaa qofkii guri kaa karaysan lahaa. This is a whole another video uu noqon doonaa inshallah. Haddii aad rabto inaad barato this whole entire process from A to Z aan waxba lagaa butinin oo the whole thing lagu baraayo website igu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com. Hadda waxaan aqbalayaa almost 10 people aqbalaya this month inshallah haddii la yiraahdo. Haddaa rabto if you need a step by step guide waxaa kusoo biri kartaa my course kusoo biri kartaa oo live Zoom training aan bixiyaa. Hadda this month I'm offering crazy deal only $70 aa bixinaysaa. And I usually do this once in every 3 months aan sameeya badana ma sameeyo. waxaan ku baranayaa from A to Z how you can buy your first rental property. So then next time aad rabto guri inaad iibsato you don't even need real estate agent ma baahnid cidaa u baahanta ma laha adaa waxaa noqonaysaa xor inshallah ugu soo boqo website-kayga sahaninvestor.com halkan oo laga soo qaban kartaa nambarkayga ka helaysaa haddaa rabto arrimaha guryaha inaad guri iibsato anaga kaa caawiyo ama guri cusub inaad iibsato waxaa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com ama profile-kayga aadi doontaa inshallah waan islaamaya assalaamu calaykum